kooxda Barcelona oo shaacisay muddada uu garoomada ka maqnaan doono Pedri. Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in xiddigeeda qadka dhexe ee Pedri uu qabo dhaawac dhanka muruqa dambe ee boodada midig ah, taas oo keeni doonta inuu garoomada ka maqnaado muddo hal bil ah. Xiddigan 23 jirka ah ayaa dhaawacan dareemay intii ay socotay ciyaartii xalay ee 4-2 kaga badiyeen kooxda Slavia Prague ee tartanka Champions League. Baaritaanadii saaka lagu sameeyay ayaa muujiyay darnaanta dhaawaca, taas oo keentay in dhaqaatiirtu ku taliyaan nasasho 30 maalmood ah. Maqnaanshaha Pedri ayaa dharbaaxo weyn ku ah kooxda reer Catalan maadaama uu xil ciyaareedkan ku jiray qaab ciyaareed cajiib ah. Wuxuu furay u ahaa guulaha kooxda isagoo dhaliyay 2 gool isla markaana caawiyay 8 kale tartamada oo dhan. Maadaama uu maqan yahay Pedri, wuxuu seegi doonaa kulamo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kulanka u dambeeya ee wareegga koowaad ee Champions League oo ay la ciyaarayaan kooxda Copenhagen, kulanka rubuc dhamaadka ee Copa del Rey oo ay wajahayaan kooxda Albacete, iyo dhowr kulan oo muhiim u ah tartanka horyaalka La Liga. Tababare Hans Flick ayaa hadda ku qasbanaan doona inuu adeegsado beddelka Pedri, isagoo ku kalsoonaan doona xiddigaha kale ee qadka dhexe ee kooxda sida Frank de Jong, Marc Bernal, Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo iyo Eric Garcia si ay u buuxiyaan kaalintaas banaanaatay. Dhinaca kale, Pep Guardiola oo si qiiro leh uga hadlay dhibaatada haysata City xil ciyaareedkan iyo qorshihiisa dib u dhiska kooxda. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa si furan uga hadlay xaaladda adag ee ay kooxdiisu ku jirto kadib guuldaradii 3-2 ee ka soo gaartay kooxda Bodo Glimt tartanka Champions League. Guardiola ayaa qirtay in natiijooyinka kooxda ee tan iyo bilowgii sanadkan 2025 aysan ahayn kuwo wanaagsan. Haba ahaatee horyaalka Premier League ama tartanka Champions League waa inaan dib u soo laabanaa natiijooyinka tan iyo 2025 ma wanaagsana marka loo eego Premier League iyo Champions League, ayuu yiri Guardiola. Inkastoo uu dareemayo in wax walba ay qaldan yihiin xilligan, Pep ayaa ku nuuxnuuxsaday inay tahay inay hore u socdaan oo ay isbeddel sameeyaan kulamada soo socda oo ay la ciyaarayaan Wolves iyo Galatasaray. Wuxuu sheegay inay faahfaahinta yaryar ay saameyn ku yeelanayaan kooxda, balse ay tahay inay isku dayaan inay xaaladda beddelaan. Isagoo ka hadlayay tartanka Champions League iyo guuldaradii dhawaan ka soo gaartay kooxda ay isku magaalada yihiin, wuxuu yiri shaki kama qabo tartankan, waxaana si dhib yar kuma yimaadaan, taasina waa hubaal. Manchester United way naga badisay wayna naga fiicneed, boodo waxay lahayd dardar, laakiin kooxdu way joogtay, fursadana waan abuurnay. Dhanka weerar celiska iyagu aad ay ugu fiicnaayeen. Manchester City ayaa hadda u muuqatay inay gashay mid ka mid ah waqtiyadii ugu adkaa ee ay soo martay muddooyinkii ugu dambeeyay, iyadoo Pep Guardiola uu ku dadaalayo sidii uu kooxda dib ugu soo celin lahaa dhabihii guusha. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobnayd ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawan inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.